بسم الله الرحمن الرحيم قلبت waxaan mar kale qabanaynaa barnaamijkii iska jir oo runtii muhiimada fara badan oo loo baahan yahay in la hagaajiyo ama la saxo ama wax laga korsado aad uga hadla galabta waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya marka aad fiirido inay maanta wali nooshahay oo Soomaaliya ay wadamada adduunka ka tirsanto calankeena banayo waxyaalo tiirar ah ayaa jira oo ku taagan yahay ilaahay amarkiis laakiin tiirarkaas oo ku taagan yahay ayaa dadkan lagu nacibihi anu marka waxaan isiri wadankan yaa habaaray asaga dadka aqalkaaga saddexda tiir oo ku taagan yahay hadaa ayaga tiirarka rabto inaad bixiso ka war maxay yihiin waa tiirarkaas hadaadan ogeyn walaal macaan anaga kula wadaagayna waxa loo baahan yahay tiirarkaas inaan ilaashano walibana aan kordhino tayadooda iyo waxa ay noogu fadhiyaan inta ka war helno maxay yihiin way tiirarkaas tiirka ugu muhiimsan oo runtii u dhaxaadka waxa waa nolosha waxa u muhiimsan horta wixii lagu dhaqdhaqaaqi lahaa in la helo waxa lagu dhaqdhaqaaqi lahaa hadii la waayo hadii waa mushkilad xoog la waayo tiirka ugu muhiimsan ee maanta Soomaali ku taagan tahay waa dhaqaalaha yar ee Soomaalida qurbo joogta uga yimaada waay lacag laga qiyaasayo 1.6 bilyan oo dollar ayaa qurbo joog uga yimaada laakiin Soomaali maanta hadaa wareysato tira ka waran qurbo joogta waxay ku leeyihiin balaayaha ku dhacdo waana dhibeen marka weydiisay waxa ay ku dhibeen waxa ay ku sheegayaan oo runta ah marka aan raadinay oo aan baarnay waxaan ogaanay inay ku saleysantahay waxay ku leeyihiin shalayba waa carareen markii dhibaatadu ay haysatay dalka ka carareen maanta inta soo noqdayna rabaan waliba inay xukumaan oo wadanka mas'uuliyadiisii ee iyagu gacanta ku dhigaan oo hadaa fiiriyo darajooyinka ugu sarsareeya wadanka ayaga ayaa gacanta ku hay hadana macnaheedu markaad fiirido tiirarkaas marba mid aan ka hadlo oo runtii boobsiyana waa kooxda dalkan uu ku dhisan yahay waa kooxda wadanka dibadiisa inta tagtay wax uun dalkan dib ugu soo celiya dhaqaale ah ayaga waay ayaga haddaan habaarna ka war balaayaha ku dhacdo balaayadii aan u sheegaynay mid ka mid ah soo bilaabatay hadda war dadka ha loo duceeyo mid bilaabatay waxay tahay maanta waxa la laayahay hatta ayaga oo shaqaysan oo guryahooda ku jira waxa yar ay soo diri lahayn cid soo qaadi lahayd waa la laayahay Soomaaliya maanta waxay u taagan tahay labada bil saddex bilo soo socota hadaan xal la helina xawaaladii waa la soo qaadi lahayd saaxiibo hadaa ku faraxsan tahay hadii kalaba wadankaana muhiimad weyn bay ugu fadhidaa arintaasi tiirka labaad oo ay Soomaali nacab tahay oo marka aragto ay habaarayaan laba magac oo yaab lan ay u bixiyeen waxay ku leeyihiin ganacsatadu waa tuugo waxay ku leeyihiin ganacsatadu waa dhigmeerato war Soomaaliya dadka wadankan Soomaaliya marka dhaxmartid caasimadiisa aan dhaxmartid maanta meeshii iftiimayso nalka fishidan yahay dad ganacsataha sameeyay dadka ganacsatada oo sameeyay maanta suuro galiyay in aniga warbixintan ku soo gudbi karo oo maanta wadankan oo waxba ka maqleen isgaarsiin ah oo wadankani uu leeyahay diyaarada inta safar adduunka afartiisa geestagi kara oo ay Soomaaliya maanta ay ka shaqeeyday oo wadankan maraakiib wax soo daldala oo ay Soomaaliya leedahay wadankan uu leeyahay bangiyo inta lacagtaada u dhiibata adduunyada geeskeeda ka qaadanaysid war dadka waxa ka shaqeeya iyadoo 25 sano dagaal lagu jiray habaar ma mudna in wax laga sheego haday wax ka qabyo yihiin in la toosiyo ama la saxo ayay mudan yihiin ee aan lagu sheegin inay yihiin dhigmeerato iyo tuugo aniga kula hadlaaya aniga ayaa muddo dheer qurbaha deganaa muddo dheerna Soomaaliya degan xafiisyada dawladda anoo dhax socda xafiisyada shacbiga anoo dhax socda magaalada anoo dhax maray leeyahay war dhoorre ma tuugada la shaqeysa adiga war saas ma ahan Soomaaliyay yeynan siibin tiirarka oo wadankan ku taagan yahay waxa soo haray oo dadka Soomaaliyeed ay nacab yihiin tiir muhiim ah dawladda dadkii markaa weydiisay waxay ku leeyahay waxan dawlad maaha war dawlado badana soo maray ilaa iyo kun iyo maxaa la yiraahdaa 2001 ilaa iyo maanta wadankan dawladda ka dhisnaayeen 1960 ilaa iyo 1990 dawladda ka dhisnaayeen wali ma aanan helin dawlad shacbiga Soomaaliyeed dhinaceeda ay u cararaan wali ma aanan helin waa qabyo waana qabyo qof walba Soomaali oo ka mas'uul yahay ee qabyo qof gaar ah oo la haysta ma aha dawladda madaxweyne yaraatiin madaxweynaha loo haysto dacwo madaxweynuhu waxa uu hagaajin karaa wax yar ummad hagaagsan rabtan in wadankooda hagaago ayaa dawlad hagaagsan xaq u leh hadaad adiga hagaagi weyso haba yaraatay xaq u malihid in aad heshid dawlad wanaagsan waxaan isku dayeynaa marka inaan fasirno sababta saddexda tiir loo necab yahay anu marka fasirkaas shakhsi ugu yahay waxa ay tahay ganacsatadan horumarinaa sababta dadku ay u necab yihiin markaan raadiyay fasirka aan helay waxa uu yahay Soomaali waligeed iyo Allaheed ma yeelan dad taajiriin ah maanta Soomaali waxay leedahay dad bilyaneer ah
hanti muuqata oo dad Soomaaliyeed ay sameeyeen 25 sano u dambeysay rag heesta ayaa maanta jooga sida darteed waa wax nagu cusub qof taajira iyo qof faqri Soomaali ma laha jirin maanta waa ay cadahay Soomaalida taajiriinha soo baxsatay oo arrin nagu cusub waay qurba joogta waxa ay Soomaalidu u niciin marka aan raadinay waxa ay tahay reer magaal fara badan ayaa wadankan hore uga qaxay markii 9-kii la gaaray reer magaalkaasi markay qurbaha tageen waliba qurbaha reer galbeedka ay tageen waxa ay kororsadeen ilbaxnimo iyo waayo aragnimo waxa u suura gashay ugu yaraan xataa inay iskoolaadkoodii kor u qaadaan iyo aqoontoodii markii ay soo noqdeen ee wadankan yimaadeen asagoo wili xabad ka dhaceedo asagoo wili bambal la isku qarxinayo waxa ay qalbigooda ku jira waxa ay tahay ugu yaraan wadankan inay wax ku soo kordhiyeen waa jiraan qurba joog xun waa idin ku raacsanahay waa jiraan qurba joog raba wadankan inay lugooyaan sida darteed ummadda oo dhan yaan la isku hal jawaan lagu ridin ee ummadda iyo dadka iyo dalka haloo naxariisto dawladnimada ayada markaan wax ka sheego ka soo bilaab 1960 ilaa iyo maanta 60 sano dawladna dawlad dhinaceeda ay dadku u cararaan ay dhahan anaga dawladeena ku kalsoonahay mana yeelayna dawladeena wax laga sheego wali nooma dhalan waqti dheer ay qaadan dawladnimo wax lagu hela ma ahan sahal waxay u baahan tahay dad raba inay dawlad helaan dawladnimaduna waqti dheer in laga shaqeeyo u baahan tahay sida darteed waxaan ku leeyahay iska jir ma dhawa dawladnimo aad iyo aad u maansantiin